Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada kanaalkayga. Magacaygu waa Maxamed Cali, waxaan ahay arday dhigta Business Administration anigoo diiradda saaraya Human Resources ama HR. Maanta topigeenu waa maxay HR? Dad badan marka ay maqlaan HR waxay u haystaan inuu yahay qof kaliya shaqaale qora ama waraaqad diyaariya. Laakiin HR waa wax ka badan intaasi. HR waa qaybta ka shaqeysa dadka shirkadda jooga. Waa dad hubiya in shaqaalaha si fiican loola dhaqmo, mushaarka la siiyo waqtigiisa, lana caawiyo marka ay dhibaato qabaan. Tusaale ahaan, haddii shirkad rabto qof cusub, HR ayaa soo xusha. Haddii shaqaale dhib qabo, HR ayaa dhageysata. Haddii shaqada muran ka dhaco, HR ayaa isku dayda inay xaliso. Marka si fudud aan u dhaho, HR waa isku xirka shirkadda iyo shaqaalaha. Haddii HR wanaagsan jirto, shaqaaluhu way faraxsan yihiin, shirkadduna way horumaraysaa. Haddii aad xiisaynayso ganacsiga ama shaqo mustaqbalka, fahamka HR aad buu muhiim u yahay. Haddii aad ka heshay toobigani, fadlan like saar, subscribe-na samee, fikirkaagana iigu reeb commentiga.